xasan sheekh maxamuud culusow madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya villa Soomaaliya ayaa taagan isgoys siyaasadeed oo halisa waxa hadda uu arkaa galmudug inay tahay halkii siyaasad ahaan uu ku geeriyoon lahaa wuxuuna kala saari la yahay qaar ka mid ah saaxiibadiisa ka wada tirsan xisbigii lagu kala tagay ee JSB xasan sheekh maxamuud oo culaysadan wajahaya ayaa haddana abaabul ciidan ka bilaabay deegaano ka tirsan galmudug gobolada mudug iyo hiiraan waxa la amray ciidamo militari oo ku sugnaa inay tagaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka galmudug waxaa la yaab la arkay markii ciidamo ka tirsan kuwa gorgor oo ka howlgelaya magaalada Xaradheere ee gobolka mudug lagu amray inay isku dhiibaan ciidamo maleeshiya beeleeda oo ka soo jeeda beesha Saacad kana amar qaata musharax lagu magacaabo Liibaan Shuluq ciidankan ayaa la sheegay in maleeshiyaadkaas ay ku biireen isla markaana halkaas loogu qaybinayo direyska ciidanka militariga iyaga oo wata gaadiid dagaal oo beesha Saacad ay leedahay ay ku wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka galmudug taas oo xaaladda amni si weyn uga sii daraysa isla markaana qasabtay in qaar ka mid ah beelaha degan magaalada Dhuusamareeb ay ka soo horjeestaan qorshahan ay villa Soomaaliya gadaal ka riixayso xasan sheekh maxamuud waxa uu sidoo kale culayse kala kulmayaa Mahad Maxamed Salaad agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA isagoo kaashanaya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayuu Mahad Salaad xasan sheekh hortiisa ka sheegay inuu yahay musharax madaxweyne oo dawlad goboleedka galmudug isla markaana uusan ka hari doonin Mahad Salaad waxa uu sheegay xasan sheekh inay hortaala laba arrin midkood in uu Mahad Salaad si toos ah u dhiso iyo in uu gabi ahaanba u ogolaado Mahad inuu isagu iskiis u tartamo awoodiisa ciidan iyo dhaqaalihiisana adeegsado ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa markii ugu horeysay isaguna xasan sheekh u sheegay in haddii dhowr tallaabo ay uga tanaasuleen koonfur galbeedna isagu uu maamushay maanta galmudug ay ku dhagan yihiin oo uu rabo in Mahad Salaad loogu cimaamado xasan sheekh maxamuud markii kulanka Mahad Salaad iyo Xamse kala dhaxeeyay uu fashilmay waxa uu yeeray Liibaan Shuluq waxa uu kala hadlay arrimaha ka soo cusboonaaday dawlad goboleedka galmudug balse Liibaan Shuluq dhankiisa waxa uu ku adkaystay in xasan dhaqaalihii ugu badnaa uu kaga qaatay inuu ka dhigayo hogaamiyaha galmudug sidoo kale waxa uu sheegay in xogayaasha xisbiga JSB uu siin jiray lacag billa ah oo mushaar ah kuwaas oo ugu talagalay in la fududeeyaan howlaha musharaxnimada dhaqaale aad u badanna uu ku bixiyay arrimaha ololihiisa haddana uusan joogin xilli uu ka tanaasuli karo Liibaan Shuluq waxa uu xasan sheekh maxamuud ugu cagajugleeyay inuu gacanta ku hayo siyaasiyiinta ugu badan ee habargidir waxa sidoo kale uu sheegay inuu gacanta ku hayo beeshiisa Saacad oo doorasho iyagu aysan rabin aysan galmudug ka dhici karin isagoo sidoo kale hoosta ka xariiqay in awood walba uu gelinayo in mucaaradku ay helaan culaysna saaraan dhinaca villa Soomaaliya xasan sheekhna xoog looga saaro madaxtooyada taas oo Liibaan Shuluq uu sheegay in kaliya xasan uu kaga badbaadi karo in isaga uu u cimaamado musharaxnimada galmudug tani waxay kaliftay in xasan uu wajaho wareer dhanka siyaasadda waxa uu ka baaqsaday in xalay uu si toos ah shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyeeyay salaada ciida iyo sidoo kale hambaliyada maalinta ciida isaga oo ku jiray wareer siyaasadeed xaaladiisuna meel adag ay mareysay waxa arintaas sidoo kale ugu darmatay inuu fashilmay qorshe uu daneynay inuu ku qaarajiyo Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo gacanta ugu hayay wiil mid ka mid ah xaasaskiisu ay eedo u tahay taas oo ka dhigaysa in xasan dhammaan qorshayaashiisu ay u muuqdaan kuwa aan socon karin madaxweynaha Jubbaland ayaa ugu yeeray inuu yahay madaxweyne hore dawlad federaalna aysan jirin si madaxweyne qorqorna waxa uu si toos ah u sheegay in la gaaray xilli doorasho iyo waqti kala guura oo dalka dhan ah ayna tahay in si midnimo ah looga gudbo xasan sheekh maxamuud oo dharbaaxooyinkaas oo dhan ay ku dhaceen waxa deeqi waayay khudbadii uu ka weeraray mucaaradka uu ka jeediyay masaajidka isbahaysiga oo aaga madaxtooyada ah waxaana mar kale muungaab uu ku amray in dhammaan degmooyinka laga keeno dhalinyarada iyo haweenka ka shaqeeya isla markaana la isugu geeyo aaga wiish halkaas oo uu khudbad ugu jeedin doono isla markaana xaaladda cakiran ee uu ku jiro uu kaga nafisi doono